ورحمة الله وبركاته. سلام كدب فرحة إنه تهاي كحلبانة البرلمان الصومالي مانت إذا اللي جوجا أنا أقول الشقة برلمان مانتا وأن هل كان وجوجنو فرحة وين إنه تهاي إن كسوق بقولنا برامج كان قيمة له وأنا حل نوع إجمتين إن إذا كم تلنا مناسبتها جار كالليدين marka ugu horeyso waxaan u maadcelinayaa guddigii doorashada maanta qabaqaabiyay oo ka koobnaa 5 xubnood oo sharaf leh isla markaasna na xasuusiyay doorashooyinkii dalka ka dhacay 2012kii guddigii doorasho aan lahayn guddidaas ay la mid ahaayeen maanta sida barnaamijka ay u qabaqaabiyeen waxaaba dhigi karnaa annaga xilligaas waaba naga fiicnaayeen oo maanta si heer sare u soo agaasameen gudoomiyaha iyo ku-xigeenka iyo xogeyaha iyo gabdhaha sharafta leh ee maanta shanta xubnood ee barnaamijka laga qaabiyay mahad ballaaran idin jeedinaynaa hadana xildhibaanadii baarlamaanka shaqo gudateen ilaahay abaalmarina idinka sii insha Allah marka kale waxaan u hambaleynayaa xubnihii maanta la doortay kala ahaa gudoomiyaha cusub ee la doortay iyo xogeyaha guud cusub ee la doortay gudoomiyaha cusub ee la doortay Maxamed Cusmaan Xaaji Cali Nuur oo saaxiibkay aan 4 sano hore soo wada shaqeynay maadaama ururada shaqaalaha aan ka mid nahay asigana uu ku matalayay shaqaalaha Soomaaliyeed isu tagooda annaa ku matalayay baarlamaanka Soomaaliya guddigiisa shaqaalaha iyo arrimaha bulshada iyo shaqada waxaa kaloo maanta hambali u jeedinaa walaalkay Axmed Xasan Cumar oo isagana loo doortay xogeyaha guud ee guddiga ururka istaga shaqaalaha Soomaaliyeed labadan xubnood waxaa lagu doortay si xalaal ah annaga korjoogan ka ahayn maxaa yeelay doorashooyinka markay dhacayaan waxaa jira wax la yiraahdo korjoogayaal marqaatiyaal annagoo shacabka matalayna korjoogan ka ahayn si xalaalayna ku dhacday walaalkay Maxamed Xaaji Cusmaan iyo saaxiibkii la tartamay Abuukar Salaad waxay muujiyeen karti maanta codkiina idin weydiisteen waa siiseen horena Soomaalidu waxay u dhahdaa laba qof haday tartanto mid un baa soo baxo Maxamed ku guuleystay hambalyo sidoo kale doorashadii labaad wareegii labaad waxaa dhacday doorasho oo wada ogol ah oo dhammaan aad ku wada ogolaateen inuu idin hogaamiyo xogeyaha guud ee guddiga isu taga ururweynaha shaqaalaha Soomaaliyeed Axmed Xasan Cumar maxaa yeelay waxa uu tanaasulay walaalkiisa Aways markuu fiiriyay uu arkay xaaladaha dalka uu maraayo dhibaatooyinka shaqaalaha haystaan Axmed soo dhawaan ku leenahay labada mas'uul shaqo weyn u dhibteen maanta waxaan ognahay in shaqaalaha Soomaaliyeed dhibaato badan ay haysato markuu ugu horeyso horta shaqo badan baba jirtaba taas ah kowka annaga oo dawladda ah iyo dadka hay'adaha private kale iyo inta shaqo abuuri karto haday in hay'adaha ay banaanka noogu yimid shaqo abuur markuu hore inaan sameeyno markay shaqo la abuurana shaqadaas markuu waxay u baahan tahay urur ilaaliya ka warqaba xuquuqda ay leeyihiin shaqaalaha iyo waajibaadka lagu leeyahay waxaa ogaatiin dhammaan wadamada caalamka oo dhan ururo shaqaalo oo noocaan oo kale leeyihiin aadan ugu faraxsanahay maanta in ururkan 4 sano uu soo shaqeeyay maanta meesha waxaan la fadhiyaa beeraleydii waxaan la fadhiyaa kalluumaysatadii waxaan la fadhiyaa ganacsatadii iskuuladii waxaan la fadhiyaa hoteeladii ilaa 8 ururo shaqaalaha waxaan rajaynaynaa sanadkan inay ka sii bataan 8daas oo inta naga maqan oo walaalaheena ah ururada kale ah ee shaqeeya inay ku soo biiraan marka waxaa laga rabaa labadan mas'uul hoggaanka laga rabaa labadan iyo guddiyada kale la dhisi doono waxyaha kale laga rabaa inay ururada naga maqan ay ku soo biiriyaan isu tag ururweynaha shaqaalaha Soomaaliyeed 4 sano ee Maxamed hadda uu soo shaqeynayay waxaan ka mid ahaa dadka inta badan la shaqeynayay dhowr bil kadib la kulmayay eegayay waxyaalaha ay qabteen wax badan ay qabteen miraayadii dalkay noqdeen caalamkii oo dhan ay soo jeediyeen maantana xilka cusub ee loo doortay waxay u noqonay
inay baabuurka shaylarah ay kusii qabtaan ee dalkan hore u wadaan ururweynaha shaqaalaha Soomaaliyeed ee maanta ila fadhiya ee ka kooban 8 urur idinkana waxaa idin leeyahay inaad la shaqaysiin hoggaankiina cusub si dalkan horumar uu sameeyo annaga marka ka guddi ahaan shaqaalaha baarlamaanka guddiga shaqada shaqaalaha ee baarlamaanka oo aniga maanta aan ku matalayo iyo xildhibaanada saaxiibada ay la socdaan waa la shaqeynaynaa hoggaanka cusub ee la doortay sidoo kale dhammaan markaa fiirsid ururada shaqaalaha waxay iskugu jiraan dhammaan da'da heerarka kala duwan da' weyn da' dhexe da' yar laakiin waxa uu wada badannahay dhalinyaro waxa ogaatiin dhalinyarada waa xoogga shaqada waaye ee dal kasta shaqo walba dhalinyara qabata haday odayaasheena maanta nala fadhiyaan way soo shaqeeyaan shaqadii ay wali wadaan laakiin shaqada waxay ku wareejinayaan mar walba dhalinyaro ay ku wareejinayaan marka dhalinyaradana waxaan leeyahay gudoomiyaha ka hadlay dhalinyarada baarlamaanka aadan ugu badcelinaya maxamed amiin dhalinyarada sanadkan isbedelaa jiro shaqaalaha sanadkan isbedelaa jiro maanta ilaa 117 qof ku codeyseen annagana ka baarlamaan ahaan cala xildhibaan sanadkan waxaa la qorsheynaa inay 50 noo codeyso marka fiiri annaga weli 50 waa yarna laakiin idinka meeqa idin codeysay 117 qof maxamed cusmaan u codeysay maanta wuxuu helay 98 cod marka tusaale fiican aan noo noqotay nimayahow annagana insha Allah doorashaas waa gelina sanadkan waxaan rabaa marka shaqaalaha ee dhalinyarada ee maanta nala joogta ha laga qayb qaato siyaasadda 2016 ka qaybgalka siyaasadda waa inay dhalinyarada hogaamisaa ka qaybgalka siyaasadda waa inay shaqaalaha Soomaaliyeed hogaamiyaan hoggaankan cusub ee ururkan waxaan ka rabnaa cala xildhibaan kontak soo dooranayso 30% inaan ku yeelano dhalinyarada codkana waa haleeri moogtahay marka baarlamaan dhalinyarada soo wada bixi doona dhabaan iyo baarlamaan wada shaqaalaha